doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. haddaba maxaa ka qabsoomay ballanqaadkii? warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey waryaheena xuseen cabdulle maxamed. howl aad iyo aad u fiican ayaa dadka Soomaaliyeed soo qabteen. wadadii dimuqraadiyadda ayaanu soo qaadnay. waxaan rabaa inaan halkaa uga hambalyeeyo walaalkay maxamed farmaajo oo noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. 3 sano ayaa maanta ka soo wareegtay doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku beegnay 8 bishii 2 sanadkii 2017. xilligaas shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradu waxay u ahayd maalin boqoran oo ay aaminsanayeen inay ka gudbi doonaan nolol adag oo isugu jirta amni darro, shaqo la'aan iyo cadaalad darro. waxay madaxweyne Farmaajo ku soo dhaweeyeen barnaamijyo aan ku saleysnayn qabiil iyo deegaan midna. maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed u sameeyay ballanqaadyo waaweyn kuwaas oo intooda ugu badan aan ilaa hadda waxba laga qaban halka qaarkoodna ay ku guuleysatay xukuumaddiisa. waxyaabaha ku jiray ballanqaadyadii madaxweynaha oo ay xukuumaddiisa wax ka qabatay 3 sano ee la soo dhaafay waxaa ka mid ah bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada, tirakoobka ciidamada qalabka sida ee u shaqeeya dawladda, wada shaqaynta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. sidoo kale dadka qaar ayaa aaminsan in dawladdiisa ay ku guuleysatay xiriirka arrimaha dibadda iyo yareynta faragelin siyaasadeed iyo mid amni oo gudaha ah. waxyaabaha uu ballan qaaday madaxweyne Farmaajo isla markaana uu ku guuldareysay inuu wax ka qabto 3 sano ee la soo dhaafayna waxaa ka mid ah la dagaalanka al-shabaab oo uu sheegay in 2 sano oo dalka uga saari doono musuqmaasuqa, cadaalad darrada, joojinta safarada dibadda ah, wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland, qabyaatirka dastuurka, wada shaqaynta dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada, iyo inuusan xiri doonin wadooyinka shacabkana lagu caburin doonin awoodda dawladnimada. sidoo kale waxyaabaha oo madaxweynuhu ballan qaaday waxaa ka mid ah yareynta shaqo la'aanta iyo tahriibka dhalinyarada, inuu dalka ka qaban doono dib u heshiisiin qaran, dhismaha ciidan qaran oo loo dhan yahay, doorashada qof iyo cod ah iyo qodobo kale. xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa weydiiyay in madaxweynaha Soomaaliya uu qabtay waxyaabihii u ballan qaaday bishii February sanadkii 2017. hal ka mid ah uu fuliyey ma jirto runtii marka laga hadlayo. bedelkeeda wuxuu fuliyey opposite-ka baarlamaanka ayuu fuliyey dawlad goboleedyadii iyo dawladda federaalka intii la yeelay oo haystay oo waqtiga la soo geliyay inuu kala dhantaalo gabi ahaanba ummadda Soomaaliyeed inuu dareen kala geliyay deegaamo qaar hadda ay dagaal ka socdaan kuwa badan ay soo kala go'een dawlad goboleedyada gabi ahaanba uu soo kala siisiibay inta kale dhiman hadda 7 bilood u hartay uu naf iyo maalba ag dhigay inuu kala siibo. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta gadaal u eegaya 3 sano oo ka mid ah muddo xileedkiisa oo 4 sano waxa uu muddadii xafiiska jooga wajahay qalqal siyaasadeed iyo mid amni oo waaweyn. sidoo kale madaxweynaha ayaa la kulmay mucaarado badan oo ay ku sameeyeen siyaasiyiinta qaar ee ka aragti doon. haddaba waa maxay waxa ugu weyn oo sababsaday madaxweyne Farmaajo inuu oofin waayo ballanqaadyadii uu sameeyay shacabka Soomaaliyeed 3 sano ee la soo dhaafay? Cabdullaahi Nuur Xaashi oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa ka hadlay arrintaasi. waxa uu ballan qaaday oo dhan waxa uu ahaa hoggaan mataqaanaa ciidamada qalabka sida, sababtoo ah wax kasta oo arrimaha dibadda laga keeno shirkado iyo maalgelisho la ballan qaado, dib u dhis iyo mataqaanaa infrastructure oo la soo celiyo la ballan qaado. waxaa hoggaan u ah oo suurtageliya waa amnigana waxaa ku gadaaman waa ciidamada. anigu waxaan isleeyahay qalabkii koowaad oo dhowr jeerna waa sheegay uu sameeyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo 3 taliya ciidan ugu horeeyay ayaa waxay yiraahdeen isticmaaleen ereyga ah ciidamadii 20 ama 30 ka badnaa ee uu isticmaali lahaa ee dalka la aadi lahaa. waxay ku tilmaameen ciidamo beeleed ee joogay magaalada Muqdisho. mar hadday ciidankii wax u qaban lahaa madaxweynaha iyo hadafkiisa fulin lahaa ay taliyayaashiisii inay ciidamo beeleed ku tilmaameen oo inaan la qalablaynin ay ka shaqeeyeen, waxaa halkaas ku garbabeelay oo ku laga beelay oo ku gacmo beelay hadafkii ujeedadii dalka uu lahaa inuu gaarsiiyo madaxweynuhu. waxaa jira kumanaan qof oo isugu jira siyaasiyiin iyo shacab oo qaba aragti ah in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wax badan ka qabtay waxyaabihii u ballan qaaday muddadii xafiiska joogay. kuwa dhimanna uu haysto fursad uu ku dhameyn karo laakiin uu u baahan yahay taageerada shacabka iyo garab istaaga dadka Soomaaliyeed. Cabduqaadir Maxamed Cali Karar oo ah aqoon-yahan arrimaha siyaasadda ka faalooda ayaa ka mid ah dadka aaminsan in madaxweyne Farmaajo uu guulo waaweyn ka gaaray waxyaabihii uu ballan qaaday muddadii uu xilka hayay. oo maaragtay 3 sano ku qabtay oo maaragtay la dhigi karaa waxa koow ka ah yani dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ama ciidamada qalabka sida guud ahaan madaxweynaha wuxuu yani ku guuleystay la shaqaynta
dhanka yani xukuumadda tan kale wuxuu ku guuleystay madaxweynaha jamhuuriyadda dib u habeenta shaqaalaha dowladda yani mushaar bixinta oo maaragtay 25 bisha ilaa 1 bisha inay helaan caalamka saameyn guduhu ku lahaa jiray dalka waxna iska dhaaf maaragtay caalamka marka laga leeyahay saameynta inta nagu leh waxaa kamid ahaa saraakiil oo maaragtay dowladaha dariska oo Itoobiya wixii lamida maaragtay golaha wasiirada soo xaadiri jiray oo yani shirka madaxweynaha safarada caalamka leeyahay soo xaadiri jiray hadda alxamdulillah maba laga yaqaano dowladda Soomaaliya dowlad khiyaar leh oo banaanka taagan waay maxamed cabdullaahi farmaajo oo 58 sano jir ah waxaa muddo xileedkiisa ka dhiman 1 sano ma waxay muddadaasi noqon doontaa inuu ka tago dhalinyaro hankoodii uu jabay iyo shacab aan aamini doonin hadallada ololaha musharaxiinta mise madaxweynuhu wuxuu ka dhabeyn doonaa banaanbaxyadii ay bulshada isbuurteen ee lagu soo dhaweeyay doorashadii sanadkii 2017 waxay su'aalahaasi ka dhex guuxayaan qulubta malaayiin Soomaali ah oo 30 sano marti u ah dhiig daadanaya musuqmaasuq cadaalad darro iyo shaqo la'aan aad ayuu mahadsan yahay waryaheena xuseen cabdulle maxamed waxa uu inoo soo jeedinayay warbixin ku saabsan waxyaabihii ka rumoobay ballanqaadyadii uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo 3 sano kadib ummadda Soomaaliyeed ka ballanqaaday safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa la sheegay inuu maalgeliyo danaha siyaasadeed ee madaxweyne Farmaajo maslaxa Bukar Xaaji ayaa inoo soo koobaya warbixin uu daabacay wargeyska Washington Examiner oo ka mid ah wargeysyada waaweyn ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa waxaa ciwaan looga dhigay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya waxaa Soomaaliya uu ku lumiyay $1 bilyan welina waxa uu maalgelinayaa inqilaab siyaasadeed oo ka dhaca Soomaaliya gelitaanka Soomaaliya ee safiirka cusub ee dhawaan dawladda Mareykanka ay soo magacaawday Donald Yamamoto ayaa wargeyskan waxa uu ku sheegay inay ahayd fursad Soomaaliya soo martay balse sida ay hadda wax u socdaan aysan dadka inta badan ku qanacsaneen Yamamoto ayaa waxaa horay uu safiiro uga soo noqday Ethiopia, Djibouti iyo Eritrea sidoo kalena ku-xigeenka kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika ayuu soo noqday Yamamoto waxaa la sheegay inuu qorsheeyay istaraatiijiyad geeska Afrika oo mudnaanta koowaad uu ku siinayo isdhexgalka gobolka iyo dhismaha dawlad Soomaaliyeed oo loo dhan yahay balse waxaa muuqata in dhammaan hadafyadaasi ay yihiin kuwa u baahan waqti dheer inkastoo Yamamoto wargeyskan uu ku eedeynayo in uu maalgeliyay istaraatiijiyadan oo $1 bilyan ay ku baxday isla markaana si daacad ah uusan u qiimeyn sida howlihiisa uu qabanayo inkasta oo isdhexgalka gobolka uu sii kordhayo haddana dadaalada lagu xasilinayo Soomaaliya ayaa lagu guuldareystay intooda badan Yamamoto wuxuu si hufan u noqday nin qamaar ciyaaraya oo wareegga ugu dambeeya rajo ka qaba inuu ku guuleysto sida wargeyska uu qorayo nasiib darase canshuur bixiyaasha Mareykanka qasaarahaas hadda uu gaarsiiyay Donald Yamamoto ee $1 bilyan ah wax badan ayay iska weydiinayaan iyaga oo walaac hor leh qaba tallaabooyin dhawaan loo qaaday dhinaca dimuqraadiyadda oo ku saabsan in doorashooyin lagu qabto gudaha dalka Soomaaliya ayaa natiijo aysan ku farxin beesha caalamka ay ka soo baxday waxaana la sheegay in canshuur bixiyaasha Mareykanka xilligan ay isha ku hayaan Yamamoto iyo sida uu ugu shaqeynayo gudaha dalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale wargeyskan waxa uu ku tilmaamay inuu ku guuleystay doorashadii 2017 dadka rajo badan ay ka qabeen laakiin doorashadiisii kadib waxa uu u muuqdaa in uusan ku dhaqmin waxyaabo horay uga dhawaajinayay oo ku saabsan dimuqraadiyadda waxaana uu u adeegsanayaa lacagta gargaarka Mareykanka arrimihiisa siyaasadda ee gaar ahaaneed taasi oo aan la aqbali karin ayuu yiri wargeyska Washington Examiner ayaa sidoo kale waxa uu si gaar ah uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee iminka Soomaaliya ay marayso gaar ahaan doorashadii uu ku soo baxay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kaasi oo uu ku tilmaamay inuu yahay saaxiib aad uga agdhow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana dad badan ay sii qorsheynayeen inuu yahay madaxweynaha saxda ah ee maamulka Galmudug lacago ayaa lagu bixiyay lacagahaasna waxa ay ahaayeen lacagaha loogu talagalay horumarinta Soomaaliya ayuu yiri waxa ay soo jeedinayaan inta badan siyaasiyiinta Mareykanka in Donald Yamamoto ay daacad ka noqoto dhexdhexaadinta Soomaalida isla markaana hadalkii ka soo yeeray markii ay dhacday doorashadii Galmudug
ee ahaa in soomaalida dib u heshiisiin ay isugu yimaadaan ay u muuqato mid lagu sasabayo soomaalida, balse intooda badan ay ka dharagsan yihiin inuusan dhexdhexaad ahayn safiirka Mareykanka ee Soomaaliya. dowladaha Soomaaliya iyo Rwanda ayaa kala saxiixday heshiis ay isugu furayaan duulimaadyada tooska ah ee labada dal. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka waramaya. heshiiskan oo ay kala saxiixdeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Rwanda ayaa ka dhigaya in garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde uu markale martigeliyo duulimaadyada caalamiga ah, maadaama diyaaradda Rwanda ay duulimaad toos ah ka bilaabi doonto Soomaaliya sida uu qorshuhu yahay. inkastoo waqtiga duulimaadkan uu bilaabanaya aanan la caddayn, balse waxaa jira diyaaradaha Turkish Airlines, Ethiopian Air, Qatar Airways iyo kuwa kale ay duulimaadyo caalami ah ka sameeyaan gudaha dalka. qoraal kooban oo uu daabacay wasiirka gaadiidka iyo saadaasha hawada ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa ku sheegay waxaan la saxiixanay dowladda Rwanda heshiis laba geesood ah oo xagga duulimaadka rayidka ah. heshiiskan wuxuu isu furayaa duulimaadyada tooska ah ee labada wadan, taasoo ganacsiga labada wadan kor u qaadi doonta. anigii wasiir Kalefer Gateed waxayna wehelinayay maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Mucaalim iyo dhigiisa Master Silas ayuu sii raaciyay hadalkiisa wasiir Omar. duulimaadyada caalamiga ah ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ay ka sameeyaan diyaaradaha caalamka laga leeyahay ayaa ka dambeysay kadib markii dowladda Soomaaliya ay dib ugu soo laabatay gacanteeda maamulka hawada ee Soomaaliya. xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Sabti ah kulan ku yeelanaya xaruntooda magaalada Muqdisho. xildhibaanada ayaa maanta doodii ugu dambeysay ku gorfaynaya sharciga doorashooyinka qaranka, kaasoo u badan in ay maanta ay ansixiyaan sharciga doorashooyinka ama ay dib ugu celiyaan xildhibaanada golaha shacabka. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ayaa la sheegay inay silugsan yihiin sharcigan, kaas oo horay ay soo saxiixeen labada gole ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. sharcigan ayaa waxaa sidoo kale silugsan qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira iyo xisbiyada dalka ka dhisan. wasiirka amniga Jubbaland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay sidii uu uga baxsaday xabsigii uu ku xidhnaa iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda gobolka Gedo. Farxaan Maxamed Xuseen haynoo soo koobo. wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo dhawaan ka baxsaday xabsi uu kaga jiray magaalada Muqdisho oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa waxa uu ka warbixiyay sida uu uga baxsaday xabsigii uu kaga jiray magaalada Muqdisho. wasiirka waxa uu sheegay in muddo 3 maalin uu magaalada Muqdisho ku sugnaa markii uu ka baxsaday xabsiga, isla markaana maalin cad uu doon ka raacay magaalada Muqdisho. 3 maalin iyo 2 habeen aan Muqdisho joogay markii aan baxay kadib waxaa wacad badnaa ma aanan lahayn hadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo laamaheeda amniga way ku arkayaan ama waa lagu qaban doonaa ma aan qabin ma cabsi ama qabin, laakiin zaman aan dirmay oo fahmayo in dadku saameyn badan ku leeyihiin bay cabsida ugu badneed iyo khatartii ugu badneed oo aan qabay. labadibana rabbi waa iga badbaadiyay tabaaraka wa tacaala. waxaana ii suurta gashay in xilli maalinimo ah soo raacadoon kadibna aan Kismaayo ku imaado. dabcan dadkii igala shaqeeyay oo Soomaaliyeed oo ku aan horay erigii uga mid ahaa inaan u mahadceliyo cid walba ha ahaato, ama dowladda Jubbaland ha ahaato, ama dowladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka mid ha ahaadaan, ama shacab ha ahaadaan, qof kasta oo ay ka mid yihiin xataa qolada doonta farxeed darawliinta oo doonta lagu waday, qof kasta oo shacab oo Soomaaliyeed oo barnaamijka igala qayb qaatay mustaqbal kasta ha lahaado u mahadcelinaya. sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in qaybo ka mid ah magaalada Beled Xaaw uu ku sugan yahay, halkaasina uu tagay sidii uu dib habeen ugu sameyn lahaa ciidamada taabacsan maamulka Jubbaland sida uu hadalka u dhigay. waa sax hadda magaalada Beled Xaaw ku suganahay, waxaana ku sugan 2 ciidan. waxaa isla jooga marka ciidan oo hadafka dowladda federaalka ka hor imaadsan oo diidan iyo ciidan dowlad goboleedka Soomaaliya Jubbaland uu leeyahay oo daraawiisha oo gaadiidkooda iyo qalabkooda haysta iskula sugan, laakiin hadda maanta laba aragti kala duwan leh, ayadoo oo askartu midna uu yahay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya midna dowlad goboleedka hoostooda way hal dalna wada leeyihiin, hal cadowna leeyihiin. markuu aqli saliim shaqeynaya, laakiin hadda aqliga asaga waxaad moodaa maanta mid ka duwan inuu ka jiro magaalada Beled Xaaw iyo gaar ahaan gobolka sida degmooyin ka mid ah Doolow, Luuq iyo ama gobolka Jubbaland baan dhaho. walaalaha ciidanka magaalada jooga ciidan ka tayo wanaagsan kana qalab wanaagsan baa aniga gacanta igu jiro oo iga amar qaadanayo oo dowlad goboleedka Jubbaland ay leedahay anigu aan xukumo. marka kuwa kale oo haddii aan dareemo in ay dowladda Soomaaliya waa sax in xabsi ugu hayaan oo Jubbaland shacabkeeda iyo nidaamkii ay dadku samaysteen ay burburiyaan inay israabiyaan oo ay dagaalamaan waa wax imaan karo, laakiin waxaan hubaa dagaal inuusan qofna
u wanaagsanayn dadka aniga raadinaya waxaan joogaa dalka soomaaliya waxaan joogaa buulaxaawo meel oogama socdo talada dalkan dhinac kala hanaya qofkii aniga qabanayo ama shaqsiga si gaara ii raadsanayana waa soo dhowo waan leeyahay kaale welcome. degmooyinka gobolka Gedo ayaa waxaa inta badan la wareegay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya kuwaasi oo maalmihii dambe ay ku daabuleysay gobolkaasi iyadoona degmada Beled Xaawo ay ku wada sugan yihiin ciidamo kala taabacsan maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. gudoomiyaha golaha shacabka ayaa maanta ka qaybgalaya shir u dhexeeya baarlamaanada carabta kaasoo ka furmaya dalka Jordan. Yunis Duraan Cali wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa gaaray dalka Jordan. Maxamed Mursal iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa dalkaas uga qaybgalayo shirka degdega ah oo ay maanta yeelanayaan midowga baarlamaanada adduunka qaybtiisa carabta taasoo looga hadli doono heshiiska qarniga dhawaanna oo saxiixay madaxweynaha dalka Mareykanka ka oo lagu aqoonsanaya caasimadda Israa'iil inay tahay magaalada barakeysan ee Qudus ee dhulka Falastiin. mas'uuliyiintan ayaa markay gaareen Jordan waxaa ku soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka Jordan iyo mas'uuliyiin ka tirsan wadanka. xildhibaan Cali Jaamac Jingeli oo ka tirsan xildhibaanada la socda wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay qodobada looga hadlayo shirkan degdega ah. arrintan uu ku dhaqaaqay madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa aad u cambaareeyay wadamo badan oo islaama. warka subaxa idaacadda kulmiye ayaa dhageystayaal weli la socotaan haatana wararka dibadda. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaqada ka ceyriyay ilaa iyo 2 mas'uul oo dhawaantan ku marag furay intii ay socotay dacwadiisii xilka qaadista. mid ka mid ah mas'uuliyiinta shaqada laga ceyriyay ayaa ah safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya midowga Yurub. safiirka ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweynuhu uu ku amray in si degdeg ah uu dalka dib ugu soo laabto. xubnaha aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa ka soo horjeestay in xilka laga qaado madaxweynaha 54aad ee dalka Mareykanka. go'aanka aqalka sanadkana waxa uu meesha ka saaray rajadii dimuqraadiyiintu ay ka qabeen in madaxweyne Trump uu xafiiska baneeyo ka hor inta uusan dhammaan sanadkan. ugu dambeyntiina dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ay sare u qaadayso taageerada military iyo tan dhaqaale ee ay siiso dowladda Venezuela xil ay sii kordhayso cadaadiska Mareykanka uu doonayo in xilka looga qaado hogaamiyaha dalkaasi. wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa hadalkani sheegay kadib markii uu magaalada Caracas ee caasimadda dalka Venezuela kulan kula qaatay madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro. wasiirka ayaa sheegay in isku day walba oo meesha looga saaro dowladda Venezuela ay tahay mid aan la aqbali karin.